على رضيه سينو شقيا يعني درجات سريع جنة أين كوجانو عذابك إلهي عقابتي سكجنة وتقله هنقول بإذن الله تبارك وتعالى سيدو النبي إنه يري صلوات ربي وسلام على نيكي صحابي جاء النبي الله واحد قلت له هذا الإيشك أنا العيد كلا ويدين من أذيك أكادم بيه مركز النبي يقول صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم إلهي بن رميي به عربك جنة كدي نتص مركز النبي يقول صلى الله عليه وسلم عرب كاو يوسن دين إنه كقويه هاي إلهي ذكر جيسا سبحانه وتعالى ذكر إلهي كقويه هذا هذا بري تشوكتو هذا ضل تشوكتو هذا جدي سارنتا هذا صعوتتا هذا فردو هذا تاجنتاي ذكر إلهي سبحانه وتعالى هوش هسيهن نقطة هول دقن قشة قريه إن كدقن قشة كل ماذا إن كدقن قشة دقن كحن أو ضد كإن وحلاق الشيء أنا هلا تشوتيو حنت هلا تشوتيو إن أفك وحلاق حنتو إن إيش وحلاق حنتو اللي يسوي الشبيو إن قعنت وحلاق حنتو حنت يعني وحوي بين أبورتك توتال بهلا تشوتيو وإلهي أنك بقنا سبحانه وتعالى الله وحنا ويدي سنة إنه صوابك إنه وافتشيو خير كنا إنه وافتشيو عرب كنا حبنه هنا أدين كنا يجعمه هنا وكرده هو إلهي أكتيس خير يتشنا إنه كسبه عذاب إلهي أنك جبت بعدنا هذا بالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاك الله خيرا الشيخ محمد عبد المنعم المحاضرة قيمك نو سو wada jeedisay ilaahay waxaan ka baryeynaa subxaanahu jalla wacalaa inuu dhammaan intii maqlaysay intay gaadhayso muxaadaraduba inaga dhigo kuwii muxaadarada weeleeyay wax ku qaata waxaan ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu jalla wacalaa inuu carabkeena inoo xifdiyo inagana ilaaliyo wixii laynaga waaninayay waxaan isku dayeynaa in dhammaan su-aalihii gabdhaha ka yimi aanu sheekha u gudbino wixii mowduuca khuseeye iyo khaasatan wixii loo arko inay muhiim yihiin su-aasha ugu horeysa saa-ilku wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu walaal ilaahay kheyra ku siiyo waxaad iga caawisaa inaad iga jahli saarto marka aroosyada gabdhuha muslimiinta ay isugu yimaadaan waan ka qosliyaa waan u heesaa waan u majaajileeyaa marka arrinka isaga ah iga jaahil saar maxay tahay majaajilada aada dadka kaga qoslayso ma waxun baad ku hadashaa mise wax iska caadiyaad ku hadashaa haddii ay tahay shayga ama aada dadka kaga qoslinayso ama sixda aada ka tirinayso ama aada buraanburka ka samaynayso si ka hadlaysa waxyaalo xaqaa'iq ah ama waxyaalo iska mubaaxada ka hadlaysa ama ammaan aan xadgudub ku jirin ka hadlaysa mushkilo male markaa dhibaato madasha laakiin haddii waxa aad dadka kaga qoslinayso uu yahay waxayna shareecadu ogolayn markaasi dee waxay noqonaysaa midii aan hadda ka hadlaynay intaas kula wadaagaysa iyo adigaba dembiga intiisa badan adaa qaadanaya maadaama waxa aad ka hadlayso uu yahay wax khalad ah saxaabadu ridwaanullaahi calayhim markay dumarka ay aqal geynayaan dumarkii saxaabadu waxbay qaadqaadi jireen ataynaakum faxayuuna nuxayiikum يعني waxa weeyaan yani ereyooyin saasoo kale abay qaadi jireen marmarka qaarkood waa dhici jirtay in gabadha la ammaano oo yani waxa wey reerka la ammaano ammaanaan xadgudub ku jirin mushkila male wax dhiba kuma jiro laakiin waxaa dhibaatada ku jirtay waxa weeyaan ama inaad dad ku xadgudubto ama inaad been dad kaga qosliso ama inay muhiimadaadu noqoto keliyata uun dadka indhahooda soo jiido laakiin mowduucaad ka hadlaysa iyo shareeco ma waafaqsan yahay iyo ma waafaqsana iyo midna inaadan fiirinin laakiin muhiimadaadu ay noqoto uun dadkan uun say rabaan dadkana seed kaga qoslisaa dadkana seed kusoo jiidataa keliya hadday muhiimadaadu intaa noqoto markaas waxa weeyaan maaragtay shaki male inay khasaaro weynta dumarka qaarkooda waxaa jira waayahan dambe soo baxay
oo gabadhii wiilkii isguursadaba taqriiban tix buraanbura u tiriya cajal bay duubaan tix buraanbura loo tiriya waxoogaa shilimaaba la siiya xagga nagaas ma aqaana meeshii inaga jiraan qaarkood markaad dhegaysato waad la yaabaysaa quluwiga ku jira xadgudubka ku jira gabdho yaryaroo reer ansaareeda nabiga sal alay wasalam ayagoo agtiisa jooga maalin ciiday ahayd bay waxoogaa buraanbur bay tirinayeen nabigu sal alay slam iska daaya buuri buraanburkii ay tirinayeen baa mid ka mid ah waxay ku soo dartay wa fiina nabiyun yaclamu maa fii qadii nebigay ammaanto waxay tidhi waxaa nala jooga nebi og waxa berri imaan doona hadalkaasi ma saxsan yahay ya xaggee wax ka khaldan yahy nebigii wixii berri imaan doona ma ogeyn miya ya maxaa u aamusanteen ma ogeyn khaladku halkaasu kaga jira waa huluwi xadgudub waay nebi maxamed sal alay wasalam wixii berri imaan doona muusan ogeyn sidaas daraaddeed maadaama hadalka gabadhu uu khalad yahay iyo tixda ay tirisay nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam warkaa jooji buu ku yidhi gabadhay warkaas jooji warkaasi ma saxsana buu ku yidhi buraanburkaaga kale iyo iska wado laakiin warkaa jooji gabdhaha marka waxyaalaha khaladka dadka kaga qosilinaya ee munaasabaadka iyo xafladaha waxa khaladka akhrinayaa joojiya waa in la dhaho warkaa bedela oo wax sax ku bedela laakiin buraanburka iyo yani waxa weeye munaasabaadka iyo lama diidayo dadka inaad munaasabaadka noocaas oo kale ka farxiso lama diidayo inay ka qosliso lama diidayo laakiin waa inaad waxaad kaga qoslinayso wax aad ugu maadeynayso waxa aad ugu buraanburayso waa inuu yahay waxaan markaa shareecada khilaafsanayn wabillahi tawfiiq جزاك الله خيرا شيخ marka ma garanayno mar beterigaas ka dhacaya marka waxaan ku qasbanahay beteri inaan raadino insha allahu tacaala aan sabro su-aasha ku xigta sheekh maxamed gabadh ayaa waxay leedahay walaalkay ayaa wuxuu jecel yahay rabaa inuu guursado saaxiibaday wuxuu weydiistay inaan siiyo xog ku saabsan gabadha saaxiibaday ah marka haddaan xogta saaxiibada ka gudbiyo oo walaalka u gudbiyo isagoo guur ka raba xal miyay igu noqonaysaa bismillah sida asalka waxa weeye haweenku iyaga ayaa is-xog og waxyaalo badan oo raggu aynan ka ogeyn bay ka ogyihiin iyo iyaga dhexdooda iska ogyihiin ayagana jidhkooda waxay is arki karaan in aan loo ogoleyn ragga ajnabiga inay ka arkaan haweeneyda waxay wada fadhiisan karaan oo wada joogi karaan si aan loo ogolayn in ragga ajaanibta u wada joogaan jinsi isku dhex jira wey maadaama aada isku dhex jirtaan xogta aada ka og tahay haweenta ama saaxiibta ah ama aada wada fadhiisataan inaad ku sheekayso ood weliba rag u gudbisaay waa xaaraan waana khayaano weyn waay inaad gabadhi walaasha ahayd sifayso tilmaanto jirhkeedii sifayso dabeecaddeeda sifayso waa midaan hadda ka hadlaynay waay waa masale xaaraam qaci ah waay hadday noqoto in loo baahdo taqriiban guur gabadha looga baahdo adigiina lagaa maarmi waayo oo lagula tashado oo la yidhahdo gabadhaas waxaan rabnaa inaad wax nooga sheegto xaaladda iyadaa guurna la doonayo waa muhim qodobkaas guurna la doonayo adigiina laga maarmaan aada noqotay oo lagu soo maray markaas waxay gelaysaa baabu nasiixay gelaysaa baabu nasiixa oo nabigu sal lla alay wasalam wuxuu ihi addiinu nasiixa diintu waa naseexo yay naseexo u tahay ilaahay kitaabkiisa yani waxa weeyaan madaxda muslimiinta iyo muslimiinta guud ahaanba macnaha haddii lagu yidhaahdo gabadhaas inaan guursadaan doonayaa adigayna saaxiibtaa tahay ama walaalkaa ha ahaado ruuxa ku weydiinaya ama ruux kale ha ahaado maxaad ka og tahay waxaan rabaa inaad igala taliso adigoon ku kalax tegaynin adoon ku kalax tegaynin oo aan sii dhexgelaynin